Hello Siri, hello Google Assistant waa laga soo tagay. Waxaa la marayaa Circle to Search. Raadinta goobagelinta shayga aad rabto. Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 Plus iyo Galaxy S24 waa noocyadii ugu dambeeyay taleefanada ay soo saarto shirkadda Samsung nooca S20 loo yaqaano. Samsung oo dhawaan sheegtay inay soo fasaxi doonto nooca taleefan version-kii ugu dambeeyay ee ah taleefanada ay soo saarto S24 Ultra bishan January 31 2024 isla sanadkan aan ku jirno. Waxay sheegtay taleefankani inuu la soo bixi doono farsamooyin cajiib ah oo qariib ku ah dunida marka loo barbar dhigo ama loo fiiriyo taleefanada la caynka ah ama taleefanada kale ee smartphones-ka. Haddii aan dhahno dhammaan noocyada kala duwan ama waxyaabaha cajiibka ka dhigaya taleefankan S24 Ultra ayaan muuqaalka ku soo koobaynaa. Muuqaalku wuxuu qaadan doonaa saacado. balse muuqaalada taxana ayaan ka sameyn doonaa oo muuqaalkan waxaan ku dul istaagi doonaa featureska muhiimka ah oo uu leeyahay qaar ka mid ah. Magacaygu waa Injineer Cali Maamo. Halka aad naga daawanaysana waa channelkan Cali Maamo. Halkan waxaan ku soo gudbinaa xogaha iyo akhbaaraadka cusub ee teknoolajiyada. Haddii aad xiisaynayso nagu soo beer maxaa yeelay waxaan ku jirnaa qarniga teknoolajiyada. A new era of mobile is here with Galaxy AI, presenting the S24 Ultra, the first Samsung Galaxy AI phone. Galaxy AI? sanadkii la soo dhaafay 2023 oo lagu tilmaamo sanadkii AI-da ama sanadkii tartanka iyo loolanka dunida aqliyada gacanka samayska. Sanadkan cusub oo lagu jiro 2024na uu wali socdo tartanka iyo loolanka iyo akhbaaraadka cusub ee maalin walba ka soo baxaya isbedelka AI-ga ayay shirkadda Samsung go'aansatay inay ku soo biirto. Samsung oo kamid ah shirkadaha hoggaanka u haya shirkadaha soo saara taleefanada smartphones-ka oo muddo aamusneed kadib markii shirkadda ay aad kula tartanto ee Apple ay soo saartay iPhone 15 waxay sanadkan la timid Galaxy S24 Ultra oo ay ku xoojinayso Galaxy AI. Soo saaritaanka noocan taleefan ee loo yaqaano S24 Ultra oo uu la socdo Galaxy AI ayaa u muuqata inuu saaxadda tartanka kala dhaxeeya Apple iyo Samsung la wiiqi doono Apple. Galaxy S24 Ultra wuxuu isbedel weyn ku sameyn doonaa nolosheena waana 10 sano ee soo socda nooc hal abuur oo caynkan oo kale oo la soo saaro. Sida waxa dhahaya waa madaxweynaha shirkadda Samsung. Aan ku weydiiyay suuqan oo maalinta ka dambeeyay isbedelaya oo asbuuc ka hor aan ogeyn tii ay dhigaysay Google bil ka hor aan ogeyn midii ay dhigaysay ChatGPT yaa u xiray 10 sano ee soo socota shirkadda Samsung inay suuqa sidan ku maamuli doonto. bal waan arki doonaa wixii ka cusub. Taleefankan wuxuu leeyahay qayb la yiraahdo live translation oo ah haddii tusaale ahaan oo kale aad qof live kula hadlayso in qofkaasi aad luqadaada ku hadasho oo automatically luqadiisa ugu turjumayo. Haddii uu rabo text ayuu ka dhigan karaa oo text ayaa lagu qori karaa oo lagu turjumi karaa. Sidoo kale automatically codna uu ugu turjumi karaa. Waa waxyaabaha cajiibka oo aan hore taleefan lagu arag. waa live translation ayaa loo yaqaanaa ama call translation. qaybaha kale ugu muhiimsan ee taleefankani aan dunida hore looga arag ee uu wato waxa kamid ah wuxuu leeyahay keyboard awood u leh in uu si automatically isugu kala turjumo 13 luqadood. waa keyboard cajiib ah waa automatically keyboardkiisa ku samaysan ee uu ku soo baxay ee text message-ka laga qoro ayaaba awood u leh inuu 13 luqadood kala turjumo. waa cajiib. wuxuu kale leeyahay recording translation oo ah in aad voice duubaysid kadibna voice-kaas aad duubaysid oo translate garay karo adiga oo dooranaysid cod kale u sii turjun sidoo kale dhigi kartid text u turjun. waa arrin cajiib ah oo aanan hore ugu arag taleefanada smartphones-ka xataa iPhone-nada oo ah taleefanada la tartama taleefanada ay soo saarto shirkadda Samsung. qaybta ugu muhiimsan oo dunida qabsatay oo aad ka looga yaaban yahay ee taleefankan uu leeyahay waxa weeyaan Circle to Search with Google oo ah qayb AI oo aad u muhiim ah oo lala isticmaalayo Google. waxaad awood u leedahay in aad shayga rabto ama sawirka aad rabto qaybta aad ka doonayso warbixinta dhameystiran inaad goobo ka geliso kadibna uu warbixin faahfaahsan ka siiyo. tusaale ahaan hadda saacadan aan wato hadii aad sawirta ka qaad aad tiraadid adigoo adeegsanaya Circle to Search sida kaliya farta goobo ugu geliso automatically saacadii ayuu sawirkeeda ku qaado wuxuu ku tusayaa intaas oo kala duwan oo feature ay leedahay noocyada kala duwan information dhameystiran oo ku saabsan. Circle to Search wuxuu ka mid yahay qaybaha aadka loo hadal hayo ama waxyaabaha muhiimka ka dhigaya taleefankan
kahor intuu soo shaac bixin dunida tiknoolajiyadda ayaa indhaha ku wada haysta taleefankan markii la soo saaro iyo tijaabooyinka laga qaadi doono iyo wax ka soo bixi doona dhammaan taleefanka warbixinada ku saabsan muuqaalkan kuma soo koobi karna horaan u sheegnay muuqaalo kale ayaan ka sameyn doonaa noocyada aadka muhiimka ah oo gooniga ka sii dhigaya taleefankani dunidana ka duwaya taleefanada laga isticmaalo gaar ahaan taleefanadii ka horeeyay S22 iyo S23 muuqaalka xiga ayaan ku fiiri doonaa haddii aad ka heshay muuqaalkan asxaabtaada la sii wadaag commentigana adiga ayaa iska leh waxa aad ka fahantay muuqaalkan iyo waxa ka faa'iiday noogu soo reeb sidoo kale haddii ay jiraan ciwaan aad xiisaynayso oo la xiriira tiknoolajiyadda inay muhiim tahay inaan ka soo hadalno nala soo wadaag mahadsanid muuqaalka xiga ayaa noo ballama insha Allah